bismillaahi raxmaani raxiim daawadiil ku soo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle ayaa looga yeeray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. wararkaana ku helayno magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle mudane cali guudlaaw xuseen looga yeeray magaalada muqdisho. sida wararkaaynu ku helayno cali guudlaaw xuseen ayaa waxaa u yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo, waxaana sababta loogu yeeray loogu sheegay inay tahay sidii wadatashi loogu sameyn lahaa arrimaha soo kordhay ee gadoodka ciidamada iyo sidii loo buuxin lahaa fariisimaha ay ciidamada baneeyeen. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle ayaa madaxweynaha soomaaliya la wadaagi doona sida ay tahay xaalada amni ee deegaanada hirshabelle iyo iskaashi laga sameeyo xoojinta iyo tayeynta ciidamada xooga dalka soomaaliya. mudane cali guudlaaw xuseen ayaa saacadaha soo socda ka dhuufi doona magaalada jowhar isagoo ku wajahan magaalada muqdisho. magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxay ka mid tahay goobaha ay faaruujiyeen ciidamada xooga dalka kuwaasoo dowladda ka tabanaya 4 bil oo mushaar la-aan iyo garaam la-aan ah. dowladda soomaaliya ayaa haddada dadaal ugu jirta siday dib fariisimahoodii loogu celin lahaa ciidamada gadoodsan oo ku sugan duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe. daawadayaal subscribe saara janalkan haddii aad ku cusub tahay, sheer garey, laagtana ha ka iloobin. sidoo kale haddii aad aragti qabto hoos inoogu reeb, waad mahadsantiin.